maalin aan sameynayno filimka xariif magaalo anagu ku dhex jirno nin kaloo xariif magaala noo imaaday oo rabay inuu farsamo meesha ka dhex samaysto idinkeedii ku dayo annaga iyo filimkiyaaba sameynonaa filimkii xariif magaalo ahaa sameynonaa mana fahansano tiimkii xariif magaalo inaan nahay laakiin waa nin iska xariiftama asiga naftirkiisa waad ku soo dhaxlacay wuu nagu soo dhexdhaca marka idinku rabaa maalintaas inuu naga jaadkii wixii inuu naga saxdo rabaa haye السلام عليكم أخيارت شرفت لي كلنتي وناكسن كسو دوادا هنولاتو أنيقونا وأيان لحسين عبدي waxaa laga yaabaa inaad sidoo kale ka mid tahay dadka ku xiran filimka gaaban ee looga sheekeeyo dhibaatooyinka bulshada dhaqamada Soomaaliyeed ee dhex yaala marka timaado magaalo waxay uga duwan tahay miyiga waana sheekooyinka loo bixiyay xariif magaalo sheekooyinkaasi oo xalqado badan ah ayaa waxay noqdeen kuwo aad iyo aad u xiiso badan oo dad badan oo Soomaaliyeed ay aad u daawadaan dhanka kale marka la fiiriyo waxay qayb ka tahay wacyigelinta bulshada in magaalo marka la yimaado ay ka jiraan dad badan oo xarfaan ah oo dhinac walba ku dhici kara magac walba adeegsan kara si walba u noolaan kara kuwaasi oo dhibaato badan ku haya bulshada Soomaaliyeed marka ay miyiga ka yimaadaan ay magaalo yimaadaan iyo xitaa dadka reer magaalka ee magaalada ku nool oo maalin walba farsamo cusub loola soo baxo haddaba maanta waxaan barnaamijka ku marti qaaday oo aan aad iyo aad ugu faraxsanahay nin dhalinyaro ah oo dadaalay isla markaana filimkaas iyo sheekooyinkaas aad daawanaysaan ah qofka ka dambeeya ee qoray ee diyaariyay Axmed Maxamed Xasan oo loo yaqaano Daacad waxa uu ka tirsan yahay warbaahinta Astaan أحمد كسر دو برامج كأذا نقول فرح سنة رنتين عن كل مو أو عن ربي إن عن فهمنا بلنين كان شيكوين كان حسها عليه عدة كدم بيسنا نوجانا ربي لكن ما حكوا بلعب يا مركو هراء وكما أحمد محمد حسن داعد أهلا هذا وما سنتهي مركو هذا أو فرح سنة هاي إن ما تمرتكو هاي هنولاتو أو مضل عن سيدو بقول سعودي برامج هذا تكون بيسيد ويديرين أنت أنا إنه حنقيب كأهدتك كوباد كحرنا هنولاتو marka maanta inaan marti ku noqdo aadan u faraxsanahay oo aan kaaga mahadcelinayaa waqtiga iyo dadaalka aad ku bixiso inaad bulshada u soo gudbiso fariimo aad u wanaagsan midda labaad haddii aan u soo laabto su'aashaada waa kuma Axmed waa nin dhalinyaro ah oo ku dhashay magaalada Muqdisho kuna barbaaray wax ku bartay ku guursaday carruurna ku dhalay ilaa haddana ka shaqeeyo ما شاء الله ورفي عموي أحمد سيد كنت من هالكن مركا إن هذا قراف فيلم سماية نقطة شاكة سماية شاكة عرية waxaan loo yaqaano film producer saad ku timi markaa meeshaas ii sheeg ayaan loo aad u mahadsan tahay waa safar dheer oo warbaahineed oo hadda soo koobo aniga warbaahinta waxaan kusoo biiray sanadkii 2013 xilligaasi oo aan tababar ku qaatay idaacaddii ciyaaraha dalka Goal FM oo ah idaacaddii ugu horeysay ee ka hadasho ciyaaraha sportiska ee kubadda cagta ayaan loo runtii waxay ahayd waqti aad u adag oo maaragtay warbaahinta markaasi ay isan fududeen in si sahlan qofka uu soo gudbo xilli markaasi wariyaal waaweyn ay idaacadda joogin waxaan qayb ka ahaa oo aan halkaa tababar ku qaatay ee ii saamaxday marka hore waxaan bartay farsamayaqaan ayaan ahaa marka hore markii aan idaacadda imaanayay dan waxaan aad u jeclaa aniga inaan mar uun microfonkaas ka hadlo oo aan wariye noqdo taasoo xilliga habeenkii ii saamaxaysay inaan tababar yar qaato maalintiina aan gudaha xarunta tababar ku qaato markii dambena waxaa ii suurta gashay in si toos ah la ii shaqaaleysiiyay sanad kadib sanadkii 2014 bishii January maanta kale ayaan warka akhriyay oo sportiska idaacadda Goal FM waay marka waxay ahayd taariikh cajiib ah halkaas marka bilowday mihnadaada saxaafadda si fiican laakiin film qorista iyo sheekooyinka in la curiyo xagee ka bilaabatay ayaan loo kadib markii aan Goal FM shaqada ka bilaabay waxa aan noqday reporter newscaster barnaamij soo saare waqti dheer kadib warbaahinta waxaan kaga sii gudbay oo markaa aan kusoo biiray Astaan TV oo ah hay'ad weyn xilligaas waxay ahayd sanadkii 2020 laakiin waxaa u dhexeeyay safar yar oo gaaban oo dhanka warbaahinta ah waxaan ku biiray oo markaa aan u wareegay goobjoog oo markaa iibsatay shirkaddii aan ka shaqaynaynay anigii dhammaantiin ba halkaas ayaan u wareegnay kadibna muddadaas yarta waxaan sidoo kale fursad u helay inaan Goal FM idaacad mataana la ah oo radio iftiin la dhihi jiray waxbarashada ka hadasho iyo Goal FM iyo sidoo kaleeto idaacaddii sportiska oo magac ahaan Smart Group la isku dhihi jiray ayaan kasoo shaqeeyay sidoo kale waxaa mar kale fursad u helay markii goobjoog la wareegtay idaacaddii ciyaaraha dalka Goal FM in idaacad kaleeto Maandeeq FM la dhaho ayadana waxbarashada ka hadasho inaan sidoo kale aan barnaamij ka qaban jiray sida barnaamijka waxbarashada iyo ciyaaraha oo kale oo dadka inta badan aad u tixnaa jireen sportiska goobaha waxbarashadan markaas wareysiye ka qaadi jiray wararkan waan aqrin jiray
kadib ayaan low markaa xagga kusoo wareegay haddana inaan ugu sii gudbo safarkii dheeraa ayay noqotay astaan sanadkii 2020kii xilligaasi oo ahaa xilli aad u adag nolosha maadaama coronavirus oo waddanka uu xilligaas ka dilaacay marka ayaan low doorasho ma jirin shaqadii ayaa naga soo dhammaatay oo duruufo jira awgood dan qof walbo markaasi meeshuu wax u raadsan kara ayuu wax u raadsaday aniga marka sanadka 2020 bishii January waxaan soo apply gareeyay astaan oo aan shaqo ka soo codsaday maamulkaasaan si fiican ay ii soo dhaweeyeen way iqaabilin waxaana la ii sheegay in waqtigan qaybtii sportiska aan soo codsaday aysan ba shaqaynaynin oo shaqaalihii xaafadaha iska joogaan oo coronavirus uu waddanka ka jiro garoomadii kubadda cagta wasaaraddii ciyaaraha markaas garoomada ay xirtay kadibna la dhahay waqti yar kadib shaqadaada waa markay bilaabato waan kusoo sheegaynaa ayaan meel aan u laabto ma jirin markaas go'aan aan qaatay waxaan ku yiri haddii jirto kanal astaan ka tirsan oo hadda shaqaynayo in la ii wareejiyo si aan xirfad kaloo cusub aan u barto marka waxaa la ii sheegay in waqtigan ay si toos u shaqaynayso astaan filmis oo qaybta codeynta filimada ayaan waxay ahayd xirfad kaloo cusub waxaa la ii ogolaaday inaan halkaas tago aan ka shaqeeyo marka filimada la turjumayo filimada la turjumayo filimada xataa soo turjumay ayaan marka filimada halkaas ka bilaabaysa filimada soo turjumay kadib safar dheer muddo kaaban markaasi waxaa ka shaqaynaynay xarunta dabka ku taalo waxaa joogay ustaadkayga Cabdullaahi Black oo runtii si weyn safarkayga warbaahineedka caawin ugu geystay waxuu markaasi igu dhiirigeliyey in aan barto hab qoraaleedka adduunkan oo u gaarayo u socdo script writing marka waxaa mar walbo aan samayn jiray asaga ayaan soo booqan jiray mararka qaar isaga ayaaba imtixaan oo dhanka ii sheekeen wax qorista ii samayn jiray kadib muddo 5 bil kadib waan ka shaqaynayay filmiska waddankii caadi uu noqday coronavirus xogaar uu yaraaday waxaan u soo wareegay qaybtii sportiska waxaa lagu wareejiyay website-kii Astaan Sports halkaas ayaan qoraagii iyo sheeko curintii iyo waxaas ka bilaabay kadib waxaan qoray sheekooyin badan oo ciyaaraha dalka maadaama hore aan ugu soo shaqeeyay sportiska waxaan markaasi qoray maqaalo oo kooxaha aan ka qoray qaarkood sidoo kale waxaa jirta ayaan loo book aan tartanka degmooyinka ka qoray sanadkii 2021kii kaasoo xogtiisa aan aruuriyo book ay soo saartay shirkadda Astaan TV oo ay markaa team badan ay ka qayb qaateen laakiin xog ururintii xogeeda aan lahaa bookgaas ayaan soo saaray sanadkii ku xigay 2022kii waxaan sidoo kale aan ka qayb galnay oo shaqooyin ka qabanay tartankii maamul goboleedka oo aan sidoo kale book ka qoray isla sanadkaasi waxaan tartan kubadda cagta ah aan u qabanay jaamacadaha ka jira dalka oo ana sidoo kale book kale aan ka sii qoray marka waddanka sida ka warqabta ayaan loo warbaahinada muuqaalo bay duwan oo la soo dhigo laakiin waxaa markaas fursad loo helay in yani xog sugan oo meel loo raaca leh in la helo sidaas ayaana astaan mararka qaar loo soo aadi jiray oo xogaha loogu qaadi jiray marka sheekada halkaas ka imaanaysaa axmedow waxaad hadda caan ku noqotay waa sheekadan taxanaha ah ee gaagaaban aad iyo aad looga hadlo mashaakil ka dhex jira bulshada iyo sida la isku khiyaano iyo sida la isku dhaco xariif magaalo sheekadaas bal iga sheekee hadda waxaan u malaynaa waa soo gabagabayseen xalqooyinkii ugu dambeeyay xalqadii 30aad la duubay intaasoo xalqooyin oo soo socday waxay ka hadlayeen wax badan oo kala duwan nolosha bulshada ah laakiin aan ku bilowno sheekada xariif magaalo see ku timid ayaan loo sheekada xariif magaalo waxay ku timid xilligii markii astaan laga shaqeynayay sanadkii ugu dambeeyay 2025 ama sanadkan bilowgiisa ama dhamaadkii sanadka horeba iska dheh waxaa maamulka shirkadda ay go'aamiyeen in shaqaalaha dib u habeyn lagu sameeyo oo la update gareeyo oo maaragtay seminaaro loo qabto kadib waxaan fursad u yeeshay ama fursad aan u helay oo aan ka mid noqday dadkii tababarka qaatay ee bartay qaabka filimada loo sameeyo baasha dalaq liskama soo dhihin waa tababaraan galnay xitaa maamulkii waxay dhiirigelin nagu sameeyeen in markii tababarka noo soo dhamaaday xitaa oo habka filim qorista markaan baranay kadib in la tartansiiyo dhexdeena oo koox tartan inta la galay 2 gabar ay guuleysatay ayaan wax ajiib ah waaye aad u salaama gabdhahaasi oo maaragtay sheekooyinkii aan ku tartamayna iyaga ayaa ku guuleystay iyaga ayaa markaasi abaalmarinta helay laakiin anaga waa soo gudubnay oo tiimka filim sameynta kusoo gudbay oo qoraalka bartay anigana waxay caawinaysa markaas script writing maadaama aan ahaa oo qoraa ahaa oo website-kii aan hore usoo qoray qoraalkan aan ku ficnaa waxaa markaasi isku helay actorkii jilaaga ku ficnaa iyo qoraagii marka meeshaasi wax dhedhan lahaa kasoo baxay marka saas ku bilaabatay in aan sheekooyinka curino oo aan sameyno keligeena maanan ahayn markii sheeko la sameynayna maamulka shirkadda shiraa la qabanaa shirka marka la qabto waa la karkarinaa sheekooyinka maxaa maanta qaban karnaa
maadaama shirkadda ay u guurto filan samaynta oo maaragtay in garoon la aado oo maaragtay waxyaabahaas lasoo tebiyo xawaar laga guuray inkastoo si toos loogu wada guurin haddana laga shaqeeyo laakiin shirkadda waxay xoog saartay inay u guurto filan samaynta taasoo ahayd fursad kale marka ayaana waxaa ka dareemi kartaa adduunyada waa mar walbo hore ay usii socotaa qofkii aanan markaasi soo jeedin waa laga tegaya marka film samayntu waa qayb weyn oo ka mid hadda wax ugu weyn ee bulshadu danaynayaan si fiican marka sidaa darteed xooggaad saaraysaan samaynta sheekooyinka si fiican kadib waxaa dhacday ayaano in maamulkii ay noo dhiibeen sheeko xariif magaalo laho oo maaragtay nala dhahay marka hore 7 xalqa xataa gaarsiiyey sheekadan marka ayaano sheekadii way isfurtay qofba qof ay marba mar meel bay nageenaysay markii dadka ay nala qabsadeen oo dadkii ay fahmeen dadkii waxay codsadeen in sheekadan la sii balaariyo oo la sii wado maamulka axad walba waa la shiraayay waxbaa iska weydiin jirnay waxbaa la falanqayn jiray kadib waxay noqotay sheekadii sheeko iska taxana ah oo short film ah in badanna fariimo wacyigelin ayaan dhex marinaynay waxaa sidoo kale ka mid ahayd mar inaan adiga kugu soo qaadan adoo cabdistar wareysanayo siyaasiga dadka aqoonyahanada ama siyaasiga dhahayo marka qof la balamaya oo kale kale aan kafee wada cabno niman baahan oo waxba cunin kafee beerka u saarayo dhargsana kafee cabo sheekada noocaas oo kale adiga mar aa wareysanaysa cabdistar aan qayb ka mid aan kusoo qaadanay ayadana filimkay noo qurxisay marka sheekooyinkaas inta xalqaad samayseen sheekooyinka ugu xiisa badnaa ayaanlo sheekooyinka ugu xiisaha badnaa waxaa ka mid ahaa sheeko uu ninkan asoo wadda iska socdo xaalka ku xun yahay wuxuu kusoo kordhacaa nin shil galay oo baabuur wato oo nin mooto fekon wato hadda magaalada fekona ku badan moogtaa marka shilalka ugu badan meeshaas ka imaadaan marka fekonka ku dhacaa fekonka markay dhacdo kadib isagoo meesha iska socdo meeshii fursad ka dhex arkaa ayaanlo markaas wuxuu leeyahay ninkan aniga adeer u ah markuu arko ninkii inuu miir daboolan yahay oo hadli karin ninkii marka wuxuu ku leeyahay ninkan anaa adeer u ah ilmihiis intaas waaye marka dhibka iska geysanaya miyaa adiga waa inaad iska baxdi hartaa maya kaala wada xaalta ninka ila qaad ninka wuu kula daaranaa way qaadaan isbitaalka geenayaan isbitaalka markay tagaan kadibna lacag ku dardaraa wuxuu leeyahay arrintan intay odayaal iyo waxaas gaari lahayd aniga adi aan wada hadalno shaafteerna iska bixi lacag $300 ka qaadanaa wuu ka dhumanaa marka hadhow sabir oo wuxuu tusaa marka ninka markuu dhibanihiis markuu soo kaca sabirka la tusaa leeyahay ninka mataqaanaa markaasuu leeyahay ninkaan ani ma aqaano marka ninkii dhibanaha dhibka geystane runtii waa waagaa ku baryayay maalin aan samaynayno filimka xariif magaalo anagu ku dhex jirno nin kaloo xariif magaala noo imaaday oo rabay inuu farsamo meesha ka dhex samaysto idinkii ku dayo annaga iyo filimkiiaba samaynayna filimkii xariif magaalo ahaa samaynayna mana fahansano tiimkii xariif magaalo inaan nahay laakiin waa nin iska xariiftamaya asiga naftirkiisa waad ku soo dhaxlacay wuu nagu soo dhaxdhaca marka idinku rooyay maalintaas inuu naga jaadkii wixii inuu naga saxdo rabaa waxay ku imaada marka anagoo filimkii duween oo filimkii isku diyaarinay ayaanu gaarigii aan wadanay iyo moota istaabteen marka mootada waxaa saarnaayeen 2 gabar shil weyn meesha kama dhicin mootadii jidka ka leexatay meel ay madaxa la gashay ma gudoomin marka gabdhihii marka jugtii iyo marka gabar 8 bil ah saarneed iyo gabar kaleeto ayadan dhadhees 1 bil ahay labadoodana waxay ka imaadeen isbitaal waxayna ka imaadeen markaasi ama ay u socdeen miya gubadley ay u sii socdeen marka waa soo degay aniga maadaama ahaa tiimka ninka hogaaminaya project managerka ahaa shaqadiina ay noo taalo waa iskala qaybinay tiimkii kameramaanada iyo actorkii xariif magaalo waxaan ku yidhi howshiina sii wata aniga arrintan ani darobalka meeshaan nooga taga howshiina adinka sii bilaada inaan isku kor xayirnaano wax weyn ma dhalinayso marka maadaama hadda dhib weyn meeshaan uusan oolin annaga arrintan gelayno dan ayaanoo nin dhallinyaraa ii imaaday oo intii aan dadka kala diraayo mootada iyo baawarkii aan kala diraayo wuxuu u tegey gabdhihii wuu wareystay marka wuxuu yidhi soomaaliya ka tihiin waa nin marka qabiilada aad u kala yaqaana ayaanoo khatar ah qofkaanan markaasi xariifnimada fahamsanin wuu marsiin karaa ayaana marka uu la sheekaystay wuxuu ku yidhi qabiilkii u sheegeen laftii hoose u sheegeen jifadii dadkii u aqoonsaday uu ii imaado marka wuxuu dhahay waa aniga gabdhahaas xagga fadhiyo marka gabdhihii wuxuu kusoo dhahay nimanka anaa wax idinkaga qaadaa ninka afkiina qabsada diyaar waa dhehen haddaan nimankan wixii noogu qaadaysid waa kaasaa annagana marka filimkii xariif magaalaaba samaynona odayga waa noo imaaday nin dhallinyaraa u ahay wuxuu dhahay saaxib soo dhowow hawshan waa kala qaadaynaa lacag $200 ii dire intaa ka bixina gabdhahaasna anaa la bareegaayo wixii dhib dambe imaadana ma la idiin soo raacana waa idin fasaxa
haddii kala baasha odayaal iyo nabadoono iyo wixii tegay meel dheer ay tegay ma fahanti waxaan ku yidhi saaxiib haddii aad la dhalatay gabdhahan waa wax wanaagsan arrintan waan gelaynaa bal horta dadkaan iska kala diro ayaan loo kadib gabdhihii aan u tegey waxaan ku yidhi wax dhiba ma jiro wax dhiba ma jiraan ehelada lambarka ehelkiinana siyaan dhahay xogaar way ka marmeereen kadib ninkaa ku laabtay waxaan ku yidhi ehelka lambarkiisa keen asagna waa arkay inuu xogaar marmeerayo shaki yaraa igala marka ayaan low kadib yar ila joogaa la tashtay wuxuu dhahay haddiisan ehelka keenaynin meesha sharciga ka jiro sharciga loo kala baxaa marka qolo boolisaa meesha marka uu dhib meel ka dhaco boolisaa imaanaan booliska markay imaadaan waxaan dhahay haddii arrinta aan xalli weyno adinka idinku soo wareejin doonaa laakiin waqti yarna siiya kadib ayaana gabdhihii way ii yareen waxay dhaheen ninkaas anaga maba naqaanaba lambarkana ehelka haddaan ku siinayna markaa dhahay booliska iyo sharciga ah hadhow ku kala baxayna laanno maadaama dadkiina aad diideen ayaana ninkii markaa geesaha fiiri maba joogaba gabdhaha si hoosaa ula wareystay ninkan muxuu ahaa dadkaana waxay idinkaga qaadaan aniga $200 dadkaan idinkaga qaadaan aniga marka xanaa $200 haddaan idinka helno dhibkeena waa cuni lahaynay dhahayn marka ehelkii gabdhaha iyo nabadoonadii kadib aa imaada arrintii kadib aa la xaliyey marka sheekooyidii anoo samaynayna xariif magaalo kale kusoo baxay xariif magaalo kale aan ugu soo kordhacay laakiin waxba anaga ma cuni karin oo anagaaba foojignaa sheekooyin badan oo xiiso leh ayaa ku jiray sheekooyinka xariif magaalo oo si fiican daariq uu jilayo daariq cali macow si fiican daariq caan uu ku noqday jilada filmadan yaa kaloo ka qayb qaatay oo ka mid a dhalinyarada ka qayb qaatay xariif magaalo wallahi ayaan low characteriska filimka ka qayb qaatay oo shorti filimka aaday u badan yihiin wiilal iyo gabdho ayaa isugu jiro waxaa ka mid ah gabar faatush la dhaho faaduma oo ayada actarka labaad ahayd sidoo kale yar cabaas khariidi la dhaho oo isaga inta badan ninkan mar walba filimka la sameynayo sidoo kale ama mar walba xalqa la sameynayo qayb ka ahaa ayaala waxaa kaloo ku jiray dhalinyaro kaleeto maaragtay aad u badan gabar amaani la dhaho ayadana qaybay ka ahayd actarada gabar naciimo la dhaho sidoo kale waxaa ku jiray oo actariska soo lalaabtay kamid ah axmed eke cumar jelani sidoo kale waxaa jiray team dhanka iyo muuqaalada aad nooga caawinaya oo mahadnaani oo kamid ahaa axmed sidoo kale ake saaxiibkiin oo maaragtay haddana la shaqeynaya qaybihii ugu dambeeyey hanad yar la dhaho asig nala soo bilaabay editinka yar mustafa la dhaho dhalinyarada aaday u badnaayeen marka inkastoo aan soo koobi karin inta aan ka taga haygaraa noqdaan laakiin howl laga wada qayb qaatay oo waxay ahayd ayaan low oo maaragtay waqti iyo juhdi badan la geliyey wax kastoo la qabanayo waa la isku bartaa dadku marka hore si fiican iskuma yaqaanaan laakiin marka la wada shaqeeyo oo tusaale ahaan filmaan la wada jelayo ama shaqo la wada qabto aadaa la isku bartaa si fiican isbarashadiinni bal ka waran caqabadaha idinka hor yimid ka waran dabeecadihiinna maxaad ka baratay ayaan low markii shaqo la qabanayo aniga projectiga ugu horreeyey oo aan qabanay ahaa runtii shaqadu haddaysan caqabad lahayn dhadhan ma lahan marka caqabado badan way jireen oo ama dhexdeen ha noqoto ama banaanka ha naga imaado mar walba waxaan wax ku xalinaynay si saaxiibtinima wax ku wadnay wixii markaasi naga tambato hal iyo labay ahaayeen oo maamulka u gudba oo markaasi wax ay ka qabteen laakiin dad aad isku fahansan oo aad isula dhacsan oo maaragtay maalinna filinka si farxad loogu ku dhammaanayo ayaan loo maalinna si maaragtay adoo xogaar shaqadii inay dheeraatay wax qaldameen aan dareemaysid marka waxay ahayd shaqo aanan baaqan oo week walba la duubayay oo maaragtay ayadoo aan ka warqabto magaaladan jaamkeeda dhibkeeda adoo qorshii qofaa iska balaminaysa ayaan oo maaragtay ku gembinayo mararka qaar balan b inaad sii samaysatid waa qof kale inaad sii wacdid aad dhahdid booskaas inaad gelisid qorshahaaga saa u dhigatay ayaan mararka qaar boqolkiiba boqol ma u dhacayo marka taasna waxay ku baraysaa dulqaadka iyo habka maamulka iyo maaragtay ku baraysaa maamulkan inta badan waxay jecel yihiin qofka inuu asiga waxaan ku fangareeyo wax aysan kusoo laalaaban wixii caqabad zaa'id ah oo markaas wax laga qaban karin marka waa waajib inay maamulka markaas wax ka qabtaan oo ay soo galaan laakiin inta ugu badan dad aad isku jecel oo isku marxabeynayo oo markii halqada ugu dambeysa aan duweyna xataa aad mararka qaar xataa waqti qaadan jirnay ayaan loo isbuucyada qaar intaa iswacnaa dhihi jirnaaye ka warama filinka teeda kale ayaan marka filinka wadna xataa aragtida dadka qaar anaga filinka markaas aan duweyno waa qaadan jirnay anagoo sida noogu qoran tahay oo scriptigii noo qoran yahay laga yaabaa kaamiramanka inuu wax noo sheego waxaasaa nala qurxananaya ayaan loo meeshaasaa wixii ku bedelaynaa wax macaanaa soo baxay mar walba kuma taagnin anaga waxaanaa noo qoran ilaa sheekada aan ku dhamaystiro caqliga la isku darsadaa macno sameynaa wax macaan oo macno leh marka waxay ahayd howl si guud looga wada qayb qaatay oo maaragtay wax marka tababarada astaan oo kale ay samayso hadday noqoto qolooyinka productionka qolooyinka directionka qolooyinka mataqaanaa qalabka mar walba tababaro joogta aad qaadanaysaan tababaro joogta ah oo maaragtay hadday noqoto hab qoraalka xataa waa lagu siinaa
camera editing video sida maaragtay loo sameeyo sida filimka loo duubo waxyaabo badan qoraalka filimka seminaaro aqoon kororsi ah seminaaro badan oo maaragtay shirkadda keliya ma ahan inaad u shaqaynaysid mararka qaar astaan waxbaa ka baranaysaa intaad taqaanay in ka badan ani markaa imaanaya director iyo producer midna maanan ahayn meeshaan ku dhex bartay marka waxaa waaye hoy oo waxbarasho ay taalo shaqana ay taalo marka labadii ay kulmisay waxa laga yaabaa su-aasha inaan weligaa lagu weydiin laakiin axmedow ma jirtaa duruufo ku gaara xaalado aad ku soo kortay marxalado aad soo martay oo aan jeclaan lahaa inaan anigu ogaado dadkuna ay ogaan karaan ayaan loo markii nolosha gaarka laga hadlo dadna noloshooda waa u qarsan tahay dadna maaragta caqabadaha inta ka tambateen warbaahinta imaadaan ay ka shekeeyaan si gaar aniga waxaan is dhahaa horta hore qofkaa dhib badan dunida ma saarno raallah haddaan weligaa lagu weydiin maanta waxaan rabaa inaan bal ogaado ninkaas dadaalay ee maanta magacaa sameeyey wuxuu soo maray marka raallina ahow haddii ay mataqaanaa xanuun badan tahay waa mahadsanta ayaanle waa sax runtii waa markii ugu horeysa oo laga wareysanayo qofkaa dhib badan dunida ma saarnaa tiri halkaas inoo marays axmedow ka xuma axmed waxaan ka wada axmedow dadku inta badan waxay iska arkayaan maan wax badan u qarsoon aadan u dareemi karaa waana kugu kadiyay runtii wax laga yaabaa weligaa inaan cidna ku weydiinin dadkaad la shaqaysay dadkaa saaxiibada la ahayd inaysan weligaa ku dhin axmedow maxaa dhibaato noloshaada ku haysta ama ku soo maray waa mahadsanta ayaan le aniga horta hore qoyskayga aniga hadda ka nool qoyskaaga meeq ahaydeen waxa ahayn gabar aniga lalatay oo wixii hooyo dhashay aabba u dhashay waxaan aniga iyo walaashay bah kaloo aabba samaystay way jirin hal gabar ee u dhashay hooyane hal wiil ee hor u dhasho curadkeena uu jiray sodaad markaa 2004 oo isaga dhintay kadib runtii aabbo wuxuu xooga saarayay hooyana waxay dhimatay sanadkii 2000 aabba ayaa aniga isoo koriyey iyo adeer oo waxbarashadeeda iyo nolosheeda inta badan maaragtay iyaga ayaa Soomaaliya gacanta ku hayay ayaan loo qadarta kulama tashanayso halkii gabar oo ila dhalatay oo iga weyneed oo saaxiibada aan ahayn ayadana tii rabbi yaa u imaaday way dhimatay aabba markaa xaas ayuu waqti badan lahaa 2007 ayay hal gabar u dhashay gabadhaas ayadana haddana anuu hargeysa jooga la isoo sheegay inay dhimatay sideed markaa hadda kaliya soo haray marka qoyskiina aabbana wuxuu dhintay 2020 marka afar walaalaha aad noqonaysaan iyo labadii waalid intaba way dhinteen anaa hadda adaa ka nool marka waay maxaa geeridooda way sababsadeen inay kula tahay ayaana waxaa jiro xanuun sorry axmed taye isku day inaa hadasho axmed waad dareemi karaa xanuunkeeda marka xanuun ay u dhinteen xaalad caafimaad u dhinteen si fiican intoodaba qoyskaagii oo dhan maxay tahay xaaladaas caafimaad xanuunka sokorta u dhinteen sokorta type 1ka ilaaha u naxariisto hooyo way qabtay waqtigii hooyo inkastoo hadda dhakhaatiirta iyo meelo badan looga hadlo xanuunka waa hadda waa la dagaalami karaa laakiin markaas markii waa 2000 ay ahayd markii hooyo u dhimanaysay waa ogaa inay xanuunka qabto aniga aad u yaraa marka dhaxal ahaan abaayana ugu dhimatay aabbana asina dhiig karaa dilay kastoo sakar uusan qabin aabba marka sokortii ayaa reerkaagii laysay aabar dhiig kara u dhintay marka dhaxal hooyo ka yimid oo ahaa sokortaas adimu ku soo gaarta marka ayaan ani hadda waa la noolahay sokorta la nooshahay type 1kii
dareenkay marka reebaysa waa dareemi karaa qoyskaagii oo dhan inay adiga ka nooshaa maanta wixii hooyo aaba dhaleenba adaa ka nool si fiican Waa- marka cabsidaadu waxay tahay marka xanuunkay u dhintaanna waad qabtaa tirada si fiican waa marka ayaan aniga muddo badanaa qaba xanuunka Een, dadkana nin iska afgaaban oo aan dadka la wadaagina ahaa xanuunkiisa daawooyinaa isticmaala ayaan loo daawooyinkaas intii maalin walba u baahan tahay haa arbada isticmaashaa arbada isticmaalaa 2007 yaa bilaabay ilaa hadda isticmaala ayaan loo waa oo maalin walba ah dadka iskaa dhahayan muuqaalkaaga soo kornu qabtid waa qof fiican hataa anigana mar kasto inaan aniga ilaa xad intii maaragtay inaan la dagaalamo waana la dagaalamay ayaan loo ku guulaystay alxamdulilah waxaan rajeynaa anigii intii qabtaba ilaahay inuu ka dulqaado marka dadka muuqaalkaaga u muuqdo laakiin wax ka hooseeya ma wax ka oga hooseeya ma oga hoosa gudahaaga wax ka jiro ma oga cirbadda marka dhaqaale ahaan ka war ma awoodaa inaad maalin walba cirbadda gadato ayaan loo alxamdulilah dad badan oo hadda waxaa jiro oo xanuunka qabo oo mararka qaar aniga ayaa ka bixiyaba sababtoo ah waxaan dareemaa dhibka iyo dhibaatada ay leedahay anigana uma sheego inaan xanuunkaas noolahay oo sokorta ah runtii ayaan waxaa jirto fariin aabaya aan ku wada sheekaysanay markii xanuunka aan ani 2014 sokorta laga helay ayaan intaas saaxiibada igu dhow xataa maysan ogaanin maalin laakiin maanta markii ugu horreysay wax layga weydiiyey cid ku weydiisaba ma jirin cid weydiisay ma jirin abaya ii wada Marka- marka abaya wada sheekaysan jirteen aad isugu dhaweydeen aad ay isugu dhaween haa haye sokorta markii lagaa helay maxaa dhacay waa wacay wixii markaas joogtay xilligii shaqada bilaabaya ahayd waxaan u sheegay in xanuunkaas jiro ayadana xanuunkeeda ogaa mogta aniga markaas daawada iyo markaar anaa u gudi jiray mise markaasna tababaraa iska ahay oo wax oo lacag ma qaadan jirin Soo marka dad culayska walaasha aad xusataa culayska walaashii ahaa marka waxaan dhahay xanuunkan aniga hadda igu dhac inuu idilaaba ii fiican aan dhah way iwaanisay waxay dhahday ilaahay ka cabso qof taqwo badan oo alla ka cabsiga ku fiican ahayd ayaan waxyaaba badan oo aan ku sheekaysanaa jiro laakiin hadda emotional ahaan waxaan u maleysaa inaa xogaar maxay ku tiri walaasha dardaarna ku siinaysa kulleyba ayaan waqtigaas aniga waxba uma awoodin maanta kale haddii ahaleed way ka fiicneed waa caawin kar leh waa caawin kari lahaa marka deeqo waqtigaas qof dhallinyaro ay ahayd haa iyadaa reerka ka dambeysay marka intaysan geeriyoon ka hor dhowr maraa sheekaysanay ayaan waxay xiriir lahaayeen wiil jaamacadda simad ka qalin jibiyey marka ayaan waxay kusoo kordhaanay igama qarin jirin waxay leedahay marka wiilkaasaan xiriir lahayn intii boosaaso jirto aysan imaanin marka waa imaana bal ninkaas iga eg la kulan ayaan marna si aa u xishooday haddana sina farxada ii gelisay maadaama gabdhaha hadda jira aysan xiriirka walaalahood ay kala tashan marka kalsooni badan ay gelisay wiilkii baa la kulmay sawiroo ii dhiibay sawiradaa kasoo qaada waxaa xasuustaa hotel shamo aan ku kulannay sawirro isaga uu leeyahay ayada loo diraayo ayada loo diraayo iyo sawira anay aa galay iyo wiil walaalkii abti dhalay isla galnay oo markaas ayada u dhiibaya iyo waxyaaba kale haddii kaleto waxa ugu talagalay inuu si meeshaas ku baranay wuxuu dhahay aabana waa baran doonaa nin aad u fiican oo aad u degan oo ila muuqday kadib fariina habeenkii soo dirtay marka waxay leedahay bal ka waran marka wada sheekaysigeeda dhex maray abayaan u galaynaa marka taas waa iyada iyo mustaqbalkeedii markaas ay danaynaysay si fiican marka waa inta aysan geeriyoonin wax yar ka hor si fiican marka hadalladii idin dhex maray abayo ayaad ii wada sheekadii idin dhex martay waatan ayaan lo anaa waxaa dhahayo haddii aan dhinto adduunyadan dhibkeeda ayaan ka tegayaa sababtoo ah markaas 2015 ahayd hadalkaasna waxaa u dhahay waxay ahayd ayaan gabadhii jiran oo xanuunsan oo xanuunkii ku dhacay oo daawadii iyo wixii aanoo la daala dhacayo si aan wax ugu qaba lahaa aanay xanuunkii haddana sokorti laga helay so dad marka sokorta ani markaas waxaan ka haystay sawir qaldan oo
in qofkii kula cadabay inay dilayso oo hore ka dhimanayo waay marka quusaad joogtay quusaa joogay Waay. marka waxay dhahdeen Mhm. saasaa dhihin alla u laabo alxamdulilah dhib iyo dheefba alla u laabo ka fiirso hadda maxaa aqro kaaga horeeyo mataqaanaa mise ka shaqaysatay xasuuso alla adi lixdaada lixaad qabtaa imise ayaa kaa daran ma ogtahay horta waxaa kaa sareeya ha fiirinin walaal macaan istakfirullah dheh dad badan waad dhaantaa nimcada alla ku siiyey caasi ha ku noqonin aad iyo aad dardaaranka bayada oo ah ha waay farinta ugu dambeysa waa ayaano bay goorma dhimid markaas meeqa maalmood kadib farintan waxay leedahay waa isla 2015 qoraalkan markaa ku sheekaysanayno oo isla 2015 ani xanuunka 14 dhamaadkeed xanuunka laga helay laakiin markaasi xanuunka sokorta markaasi uu sanad ama 6 bil camal aan qabay xawaar daawooyinkii wixii xawaar si iigu noqday kadibna xana labadeena haddii aan reerkii u harnay adigna xanuunka qabta anigana aan qabo marka dhibkan adduunka inaan ka tagaaba fiican marka saas ay ku timid qoraalka waa marka quustaas maxaa ku geliyay waa fikrad aad ka qabtay sokorta inay reerkaaga laysay khatar ay tahay khatar ay tahay Mm. dadkii Waa. soomaalida ku dhahaya sokor oo qabaa qofkan Mm. ka lexda Waay. ayaana marka hadda wacyigu iska batay maxaa iskaa bedelay markay kugu dhacday kadib marka ilaa maanta aad la nooshahay seed ula noolaatay seed u fahantay sokortu inay tahay ayaana inaan qof dhaho sokora qabaa ka xishoon jiray Mm. wax oo waxay ahayd horta waa qarsaday Mhm. soomaalida waxay dhahaa waxa qarsatan way ku qarsadaan Mhm. den marka 2016 aniga daawo ma qaadanaynin kaniin yaraa iska isticmaalayay marka 2016 oo kala markii gabadhii dhimatay waxaa haddana cabsi igu noqotay nolosha say noqon doonto Mhm. 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 wehel la-aan walaal la-aan aad noqotay markaa Ah. familna waa yeelatay carruurna waa joogtaa ha alxamdulilah ilaah kuu barakay ilaah kuu barakay axmedow runtii dad badan oo soomaaliya mushkiladda ugu weyn ee haysata waxaa ka mid a wixii ay qarsanayaan ayaa dhibaato ku haya maxaa yeelay waxa markaa qarsato adaa ceeb ka dhigay laga yaabay hadda cudurka sokorta aad qabto ceeb maahan maaha laakiin qarsashada aad qarsanaysay ayaa maalin walba cuqdad kuga ahayd daday weyd si fiican marka weligaana laguma weydiin si publiga laguma weydiin asxaabtaada kuma weydiina laga yaabaa maxaa yeelay maba ka sheekaynaynba sheekada qofku heerkaas islama gaarina laga yaabaa si fiican marka horta raalli noqo inaan su-aalo kaa weydiin noloshaadii waxaan rajaynayaa maanta asxaabta kula shaqaysa iyo madaxdaaduba inay ogaan doonaan in idinkoo intaasoo sano wada shaqaynaya aan maanta kaaga dhawaaday iyaga maxaa yeele waxaan ku weydiiyey waxayse weligood ku weydiinin marka raallina noqo maxaa is leedahay maxamed axmedow markaan fiirino hadda noloshaada dawada marka laga hadlayo caafimaadka iyo daryeelka iyo mushaarkaaga ma kugu filan yahay ma is leedahay kaalma u baahan tahay maxaa lagula qaban karaa ayaano baahida bini'aadanka marna uma dhammaato alxamdulilah aniga hadda waa shaqaystaa waxyaabaha sida ugu badan igu haya waxaa ka mid ah aniga aabba ahay caruura i joogto mar qaar waxaa isweydiiyaa maanta hadda adig fadhiisato carruurtaada maxaa dambeynay xaaladda caafimaad ma kar u qabtaa ma ka warwarin ilmahaas ilaahay leeyihiin mar walba adna adduunka maada keenin ilaha keenay taas horta qalbiga u sheeg noloshaadana iyaga kuma xirna nolol gaara ilahay u sameeyo qof walba nolol gaara u sameeyo ayaano waxaa jiro yar walaalkii ah oo qaraaba aan nahay hadda ku nool maraykanka ninkaasaa horta aad uga warqaba carruurteeda iyo anigaba markii xaalka xumaado aniga marka xaalka xumaado dadka ii dhow kuma la laabto waxna uma sheego baahideedana badanaa ma soo bandhigo laakiin ninkaas fitaax allah cabdifitaax careys intaa ka salaama aad u mahadsan yahay isagaa sabab u ahay isagaa reerka ii dhisay ii guuriyey ana waxba umaan haysin ilaa maantana isagaa naga warqabo xalkeena ka warqabo
wax aan maanta abaalkiisa ku gudi karo oo aan ahayn waa maasan tahay ma laha aad maxaa isku tiin asxaabana dugsiga asla soo baranay laakiin maxamed xasan qof u dhalay oo maanta ila mid yahay soo ii garab istaagay iyo caawiyey noloshayna wax ugu bedelay hawlwelin sokoraa qabtaa jooji wixii kugu cuslaada anaa joogo marka aad iyo aad qof qiimo la waay cabdifataax carays la yiraahdaa cabdifataax aad u mahadsan yahay aad u mahadsan yahay axmed runtii aad u mahadsan tahay waxaan rabaa inaan kaaga mahadceliyo waraysigan gaarka ah waxaan ku rajaynayaa mustaqbal wanaagsan waxaan ku rajaynayaa inaad meel wanaagsan gaarto nolosha haddii ku hor leedahay ninkaa qurux badan ma jiro xaaladaha caafimaad iyo duruufaha ku haysta cid og ma jiro habarar aad jirtay dadka salaama habar qadiijo ayadana salaama waxay kamid tahay dadka aadka iyo caawiya ayaan oo nolosheeda ka warqabo habarta hooyo la dhatay miya maya hooye ilma habarar yihiin waay aad u mahadsantahay runtii ilaahay maaragtay wax khayr qaba ha siiyo nolosha haddii ku hor leedahay meel fiican ku rajaynaa axmed aadaan kugu faraxsanahay runtii nin edab leh degan akhlaaq leh isdiyaariyey isku talagala tahay waxaan ku sheegaa qofkaa nasiib badan ma jiro maanta adaa noqon karaa qof kasta aad jeceshahay inaad noqoto marka guul iyo gobonimo ku rajaynaa caafimaad wanaagsan ku rajaynaa daawadayaal inta ayuu ku dhayaa barnaamijkeena axmed maxamed xasan ayuu ahaa oo ah filim soo saaro weyn oo magaalada muqdisho hadda caan ka noqday gaar ahaan sheekooyinkiisa ay dad badan daawadeen inta ayuu ku dhayaa barnaamijkeena intaan mar kale kulmi doono waxaad leenahay nabadgelyo wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waa ku mahadsan tahay inaad ka mid tahay boqolaalka kun ee soomaalida ah ee sida joogtada ugu xiran barnaamijyada ka baxa ha noolaato ujeedkeennu waa kor u qaadidda wacyiga iyo wacaalka bulshada soomaalida ka qayb qaado oo ra'yigaaga nagu biiri qof aan ogeyn wixii la soo maray ma xallin karo waxa taagan mana fahmi karo waxa soo socda mahadsanid